سبحان الله يعني هذا كهور ما أنا أركين قف إن انتو دينتو لسو سارا ومقلي لكن أنا أرق مو أركين لكن حتى ذاتك لسو سارا يا وادا 3 days وبنان يعني ماكسيمم سدح بري مركي قبري كجران lasoo saaro oo la dareemo yani inay yani nool yihiin marka lasoo saaro xataa dadkaasi badanaa 90% ma noolaadaan because qofkan dhul hoostiisa uu ku jira 2 mitir halahan meel halahan isdhan ayuu ku jira ma ifahmaysiin marka subhanallah kulli mucjiso tan ka xun waligay ma arag mana isoo marin marka bal videoga ila arka واتهاي dadkii reer Soomaaliyeed ay isugu yimid wali qabrigayaan joognaa bil koor bay gabadha dhimatay rabaa u naxariistay sida la sheegay walina dadku qaarkood waxa ay sheegeen in nin wadaad ah isugu yiri gabadha waa noosha sidii iyagu ay hadal Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo noqdo wanaagsan oo walaashin hodan channelka dam soo channel keeni hodan online hadaan ugu cusubtahay subscribe iyo sar gambaleelkana fursa u noqotay daawadaha ugu horeeya marba video soo dhigay insha Allah videoga ku ajiyo like sar xir ayga comment igu qor videogana bal si share gara asxaabtaada loo sii wadaag insha Allah because waa video mucjiso ah videoga waxa waaye gabar dhimatay oo Soomaaliyeed ah wadankeena weeyaan Gurceel inay ka dhacday aan jeclahay oo ma videoga kuleyna la wareejinaa wad aragteen ma ogi in kale laakiin almuhim gabadhan waa gabar Soomaaliyeed oo la aasay bil ka hor marka gabadhii sheekh ayaa wuxuu yiraahday qabrigan waxba ka qaldan marka gabadhan waxaan u maleynayaa inay nooshahay marka qabriga hal foqo ama se hal qodo oo hal yani qabriga hal qodo hal laga soo saaro meedka meedicin taariikhda qof bil one month teeda kale moogtiin science ahaan qofka marka uu dhinto ee la aaso inuu qofka jasadkiisu ay turaabka iyo duudaan dirxiga yar yar iyo ciidu oo qofka uu cuno oo yani qofka spinal cord-kiisa ama lafiisu ay soo heraan waxay qaadataa 4 months hadaadan ogeyn hadda yani qofka 4 bilood ka hor xataa qabriga hadii la rabo in la qodo 4 months ama 4 bil ka hor qofka qabrigiisa ma la qodi karo reasonka loo qodi karina waxay tahay yani qofka yani jismigeenu wuu uraaya qofku riixad iska badaa wax kale guriga mukulaal ama se jiir dooli hadii uu kugu dhimato urka ay leedahay aad ogtahay qof nool intaas oo sano wax soo cunaayay hilib le qaarkood ma fahmaysa yani riixad ay leedahay waa ur ma la xamili karo xataa dadka qubuurada ilaaliyaan kilibyo oo dad carab ka hadlayo dadka qubuuraha qaaska oo ilaaliya ay ka hadlayaan xataa waxa dhici karta videoyada soo socda inaan ku soo qaato oo ka hadlo oo waxay ku leeyihiin cudurada laga qaada yani qofka soo 4 bilood aysan u dhamaan qabrigiisa in la qodo waa min saabic almustahil yani waxa way wax dhici karin macquul ma ahan because qofkii wali waa qoyan yahay jismiga qoyan because anaga xeeraan leenahay jismi dhiig xab wax walba ilaahay waxaan ka abuuranahay wuxiiba marka buraaya ama se daadanayo dirxiya galay dirxigii ciidiya cunaysa dhacaankii maalin dhaweedo oday waxa ka sheekeynaya ahayd Masri waan seexan waay wallahi habeen bay ahayd waliba meelaha 6 saac ama 12 habeen midnight-ka aan daawana waan seexan waay yani waxyaabaha qabuurta uu ka sheegay dadka marka ay dhintaan say naqanayaan marka qaatumadeen Allah noo wanaajiyo sheekadii waan ka baxay raal naqda baab kala idin kala u maleynaya sheekadan waxa way gabar Soomaaliyeed oo la aasay bil ka hor oo qabrigeeda looga shakiyay inay nooshahay okay way jiraan dad laga shakiyay inay nool yihiin la foqo qabriga la soo saaray laakiin 3 bil ama 3 cisho 3 beri ama 3 cisho ka badan macquul ma ahan kas qofku wuu dhimanaya naf haduu noolaa xataa markii la aasay wuu dhimanaya teed kale qofkan markuu dhintay waa inuu dhakhtar fiiriya dadkii khubarada ama se waayeelka ama caaqish ah ee qofkan fiirinay aaway dadkii meydka meydayay because dadka meydka meydhay waa dad mukhassas qof walba maanta meyd ma meydhi karo yani qof walba intuu yiraahdo alla kaalay meydka ana meydhay macquul ma dada u go'an oo khaas oo loo wacday inay meydka meydhaan dadkii aaway wuu meydhay gabadhan okay gabadha bil ka hor see loo heli waayo ama se loo ogaan waayo bil ka hor
bal video karin balse waxa la sheegay dadka qaarkood maraan la hadlay in la rabo in la jabiyo qabuuraha oo la ogaado marka waa arin inta badan dadka ay intiisa badan hadal hayaan jooga halkan Dhuusamareeb baana qabuuro kamid ah qabuuraha ku yaala magaalada dadku intooda badan waa isku yimaadeen saa u jeedaanba dad badan ayaa yimid iyagoo markaasi doonaya in arintan ay iyagu markaasi ay ogaadaan in arin dhab ay tahay sidoo kale to arin been abuur ay tahay dad badan baa yimid halkan anigu aan kamid ahay ku dhigeena wali qabuurtii baan joognaa waana arin la yaab leh in qof bil ama laba bil agteed mootana la yiri waa nooshahay saad soo aragteenbo waxaa lagu leeyahay yani magaaladii oo dhan ay isugu yimid dadka magaalada degana because waxaan wax mucjiso ah waaye wax yani caalamka hore uga dhacday ma ahan qof yani kullay hadda in la soo saaray iyo in kale wali ma kala cad videoga saad aad aragtay ama saad arki doontaan laakiin muhiimada waxay tahay in la soo saaro xataa macquul ma ahan because qofkan waa qoyan yahay yani ma dhama xataa ma dhamaysanin cadkii iyo qofka jismigiisi inuu buro ama se uu biyoobo oo ciid laqado dhacaankii waxa dhan wali waa take time tiyada kale ma ogtiin hadda wadamadan horumari ma ogi laakiin Africa oo kale qabuuruhu way buuxsamaan haddaad ogtihiin haddaad ogni horta ma bal iisoo sheeg waxyaabaas haddaad rabtiin inaan kasoo hadlo waa idin faahfaahinaa yani dad qabuuraha ilaaliyo mutakhasisiina ka hadlaya kalibiyan haya marka waa idin soo bandhiga waan ka soo hadli doona iisoo sheeg commentiga igu reeb hadaa rabtaan inaad ogaataan qofka marka la aaso yani marka la asmaa yani mar hadii la aaso yani hadii qabriga la qodo meydka sidoo noqdaa waxaas dhaad rabtaa inaad ogaataan commentiga igu reeb waana idin faahfaahin ayadoo waa idin soo dhigi doona marka gabadhan magaalada dadkii magaalada deganaa oo dhan saad arkaysaan way isugu wada soo baxeen because waa wax mucjiso ah isugu soo baxo way mudan tahay laakiin aaway gabadha dadkeedii kulay gabadha dadkii wiilkan oo codkiisa aad maqlaysa ama klibka duubay waa qof yani meel fog wax ka jooga uu ka fog yahay yani sheedaas ayuu noogaga sharaxaya laakiin aaway dadkeedii kulay sheekadan mar hadii ay saxaafada soo gaadhay waa wax yani weyn waaye kulay waa laga soo hadli doonaa wixii faahfaahina soo ziyaadan waa idin la soo socodsiin doonaa inta channelkeena marka waa kaas marxuumadaasna inkastoo garanaynin laakiin ilaahay ha u naxariisto kulay gabar Soomaali inay tahay igu filan ilaahay ha u naxariisto qabrigeeda Allah waasiyo wax kaloon dhahaynaa ma lahan yani wax oo ma aragto wax laga dhihi karaa jirto qabrigeeda Allah waasiyo teeda kale qofkan in dad u gala oo la soo saartay teeda kale qofku waa qoyan yahay moogtii asxaabe meydku waa qoyan yahay wali way adagtaa in la soo saar hadda qurbahan oo kale dadka marka looga shakiyo qofkan in la dilay ama se loo baahdo in mar labaad la soo saaro waa la soo saara laakiin dad mutakhasisiina soo saaro qalab baa lagu soo saara yani ma aha qof intuu afka xirta la galay soo baxay macquul ma ahan waa la dadka wada moorgareeyaan ama se sida hadda cudurkan socdo kale dadka dhaqaatiirta waxay qaataan camal ay dadka wadamadan horumaray ay qaataan kadib ay degaan bahal wiish oo kale ayaa lagu soo qaada midka wax gacan iyo waa wax ku yar hadda tusaale kale canjeerada marka aad shaaxa ku shubtid aad saxan ka soo qaysay naqata teed kale dhaacana jiro dhiiga jiro cadkii oo burburaya jiro it's not easy yani gal soo saar qof guri ku jira aad ka soo saaraysa ma qofkan bas waa ciidiya cunaysa iyo duudaanka ama se aboor hawaaka aboor waaye darxima aboor waaye darxigu waa ninish maaho aboor waaye waxa dadka cuna teeda kale nin carab oo la weydiinayo wuxuu yiri aboorka waa lagu dhahay intuu qofka ka imaaday intuu uga soo baxay intuu ka imaanaya aboorkan wuxuu yiri yani aniga 100% ma dhihi kari laakiin 70% qofka aboorka cunaya calooshiisu ka soo baxaa uu yiri أنا حتى ما عندما دام سو حاسوت وحيواسي نعاوس إحنا إنكل شكيا كجرو إلى خاتم مدينة النور وناجي يا ربي الله مالين كينا مالين خيرات الله كليجو أصحابي إن كلي وحيسو زيادة أما سأبدي ذوائدين كده بنجين دونا إن شاء الله إن مرحومة داسن إله ونحرسته قبرية الله واسعي وسودعي أنا ودعينا إن هذا تبغى سوتاي سبسكرايب نوصار جنب ليل كان فرولات channel كان هيسكو مرتيني سودو هذا عصبتاي فيديو كان لايك إيسار سين شير قري أصحابتينا لسي وذاقة
mawduucyadaas oo kale diyaar rabtaan anigoo yani clipyo proof ama cadeema soo bandhigayo hadii aan si faahfaahin dad jeceshiin hoos commentiga iyo reeba intaan video lamid aan ka kulmeeno في أمان الله سلام. أنت بدن وكذا داعي على هاي برشيد ريدو سمرة بيضا دونا سقوط مساوي شيء قبورها ريدو سمرة بنشوفنا تدخل أنت بدن بيو هذا الهيان أرنتن لياب كلا ريدو سمرة تدخل جوجا